Bismillahirrahmanirrahiim. Daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee dadweynaha nagala socdo waa barnaamijkii aan ugu magac daray xaaje nimaan ogeyn xiribaha ayuu ka ridaa ee ahaa in sideeda banaanba ay qolyahan qurba joogta Soomaalida ogaadeeya ay xaalad waxba ka warqabin oo ay doonayeen inay ka toobad keenaan khaladaadkii faraha badnaa ee ay galeen. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo marka hore barnaamijkan aan iskugu keenay ee aan idiin soo bilownay Agost markay July 22 ahayd ee aan soo dhijinay inuu baqtiyay kaligii taliyihii waraabaha ahaa ee wayaanaha u talin jiray muddada badan ee Mel Zenawi. markaan soo dhijinay macala sawirkiisa waa nala yaabanaayeen inkastoo hadda TV-yada iyo dhamaanba ay cadeeyeen hayeeshee waa qaybtii aan ugu talagalay inay dhammaantiinba ka faa'iideysataan oo ah in Soomaalida ogaadeen ay u diyaar garowdo maamul xorriyada oo madax bannaan oo dhib yaraan si fudud Ilaah ugu keenay. sidaa awgeed waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo saadaalinta halka Itoobiya ay u dambeyn doonto. waxaa barnaamijkan idin soo diyaariyay aniga oo ah Wadani TV iyo waxa kale oo soo diyaariyay oo isugu keenay dabareeday waa Burhanu ayale oo ahaa mid 45 sano ka talinayay ama maamul ka soo gabanayay xukuumadihii kala gedisnaa ee soo maray Soomaalida ogaadeen kaasi oo af Soomaaliga si fiican u yaqaan oo maanta aan kula kulanay Australia magaalada Sydney markii aan programkan ka diyaarinayay ee qoraalkan ka soo qaatay. haddaba marka waxaan rabaa inaan idin sheego oo idin cadeeyo qaybtii saddexaad labaad oo inoo joogtay wayaanaha oo qaban waaya 4 awalaf haatan ah kuwa qaran ah oo ciidamo fara badan santaleediya horumarya adduun gaaray miyay qaban karaan waa maya. dadyaga aaminsan wayaanaha aan taariikh ahaan u siina marka hore waa maxay wayaanaha sideeda banaanba waa dadyow ilaa mingista xilli maryan oo ugu digi jiray muddo dheer dadka. waa dad aan saaxiib lahayn wanaagna aan waxba ku lahayn. waa dad sideeda banaanba haddii aad nabad kula joogto ku dilaya ama ku cunaya. haddii aad soo qaadato raggii la aasaasalay ururka oo qabtay sida Xaylo oo kale oo qabtay magaalada Addis Ababa markii ay 1991 ay soo galeen way dileen Mel Zenawi oo ayaa si shilqoole ku dilay isagoo loo xiray Jamaal mid uraaga ah ultimana la sii daayay. waxaa kaloo isagana ka mid ahaa raggii taamiraad leyna marka uu rabay inuu isku soo aruursado siyaasadda oo xoog u sheegto si muddo badan uu hogaamiyo dalkan. markaana waxa uu ka takhalusay oo yiri lacag inoo bixid taamiraad leyna oo ah ra'iisul wasaarihii markaa axmaarada ahaa ee ka tirsanaa Mel Zenawi uu tiyaarka u ahaa in ra'iisul wasaaraha uu ahaa. waxaa dhacday markaas iyagana in u diray Switzerland lacag kadibna uu gacanta ku dhigay oo yiri lacag ayuu la baxsanayay isagoo 14 sano xabsi ku jira ultimana Mareykanka ka sii daaya haatan ku nool Mareykanka. waxaa ku soo haray raggii markaa nooca ah wasiirkii gaadiidka iyo isgaarsiinta Cabdimajiid oo laga codsaday oo isagana wasaaradda boostada markii dambe intii loo dhiibay oo ka hooseysa wasaaradda gaashaandhigga oo markaas ammaankeeda aad u culus yahay ayuu u diray sida lagu yaqaan ciidamada ilaalada Mel Zenawi ee koonfurta kuwaasi oo xabado badan ku dhaftay ilaa 9 xabadood oo dhimasho kaga tagay. markiina waxaa lagu la orday Tel Aviv isagoo 9 saacadood diyaaradda Yahuudu operationka uu ku sii socday in ka badan 6 xabadood laga soo saaray isagoo oo raacay dirir. waxaan rabaa markaa inaan idin cadeeyo Mel Zenawi inuu ahaa xaas dadka u dhow cuno oo aan deyn iyo maamulkoodaba. inta maamulka ah ee loo ka bahaya haatan haysana waa cabsida awalaf uu ka qaba darteed haddii awalaf ay isdhiibto oo nabadgelyo ay qaadato waa kuwa ultimo isagana sidaas oo kale oo u baabi'in lahaa. waxaa markaa dhacday in Cabdimajiid uu loo xirxiray dad badan oo Soomaali ah markii altixaadku ku dhawaaqeen inay dileen magaalada Addis Ababa. hayeeshee markii uu ka soo kacay ayuu yiri Soomaali ima dilin. markuu Addis Ababa soo galeen runta ayaa loo sheegay oo yiri Mel Zenawi uu ku yiri niyo dadkan inaa xukuumaan raba haddii Ilaahay ka baxsaday shirqoolkii adoo waxba nuu dhihin ordo kursiga qaramada midoobay Itoobiya u fariisan New York halkaas oo ultimo uu dhintay oo lagu xabaalay Itoobiya oo ahaa ninka u qaabilsan qaramada midoobay Itoobiya ee u fadhiya xarunta New York.
siyaasiyiintii cadcada ee markaa intuu uusan kusoo bayoshuban ee xoog militari iyo dictatoriya uu isticmaalin ayuu sidaa uga soo takhalusay oo micnahayga yahay inuu wayaanaha lahayn daris ama saaxiibnimo qoto dheeraata oo ay kugu daayaan. xaqudurayaashan ONLF ayay ahayd marka dad iyaga aaminsan qolyahan qurba joogta ahi inay sidaa oo la socdaan oo dadkan wayaanaha ahi aysan gelin. ogsoonow xaggay aadeen kuwii isdhiibay ee WS lafta sheeganayay xaggaysu u dambeeyeen. waxaan rabaa markaa inaan idin caddeeyo inaad taageertaan ururka ONLF. haatan Male Zenawi wuu tagay dalka ONLF ayaa xukumi doonto. ha yeeshee dadyow badan oo Soomaalida ogaadaya oo ka tirsan la degta ONLF ayaan iyagan u caddeyn doonaa magaca ONLF waxa uu yahay oo khalad u haysta sideeda barnaaba. magaca ONLF xukuumadii ugu dambeysay ayaan idin soo qaaday ee Bashiir iyo xukuumadihii ka horreeyay inteeda badan dhulkan waxaa loo yaqaanay ogaadaya oo ay in markii dambe xataa ogaadeen autonomous region ismaamulka ogaadaya la dhahayay halka uu wayaanaha magaca kale oo Soomaaliyeed uu u sheegay. ma aha micnaha inay yihiin xisbiga markaa talada uu hayo ONLF ayaa dadka qadiyad ahaan deegaankaasiito waxa ay ka dhaadhiciyeen urur ONLF ahaana si ay u dagaalamaan oo maanta awoodan iyo xooggan ma aysan helin haddii ay urur Soomaaliyeed sheegan lahaayeen. sida WSLF ayay burburi lahaayeen. waxa isku hayay waxay ahayd magacan qadiyadeed ee ay ku dagaalamayaan. jabhad kasta oo soo dagaalanto oo magac ku soo dagaalanto sida jabhadii EPRDF oo arkaysay ma aha magac jiri doono, laakiin dalka waxaa loo bixinayaa magac qaran oo ummadda la degan ay ku qiimeyn doonaan oo ku qadarin doonaan mana aha. waxaa jirtay xilligii markaa Male Zenawi uu yiri waan idinka dhigayaa minority-ga Soomaalida ogaadaya in uu sameeyay ururkii la dhihi jiray leegada oo Soomaali waxaan ogaadaya ahaynba oo isku soo aruuriyay oo uu sameeyay leego. ha yeeshee markii leegadii iskugu soo qabdeen intooda badan waxay qaadeen uqdud. Cabdicasiis Gurguraan in la dhihi jiray ayaa eray xagmada ka tagay oo yiri ogaada Soomaali waa Soomaali, ururka ONLFna waa Soomaali. uqdada dheer iyo idin gelina wayaanaha la jiita wax un ka qaata, laakiin uqdad kale oo siyaasadeed walaalnimayaysiin gelin oo idinku sii qoto dheeraan. taa marka waxaan rabaa dadyoga faraha badan ee Soomaalida ogaadaya la degta ee kaleenta inaysan ahayn ONLF ogaadaya mid ay ula jeedaan qabiil ama qadiyad gooni ah inay tahay magacay ku dagaalamayeen oo jabaadeed oo dalkana la soo oran jiray muddo dheer. ha yeeshee hadduu dalka madax bannaanaado oo xurnimo uu helo waxaan shaki ku jirin in magac guud loo bixin doono oo magaca marka la isla afgarto oo la soo barbardhigo. haddii aad fiirso 92gii haddii aad fiiriso 92 xilliyadii maamulka Soomaalida ogaadaya oo lafta ay soo maraysay baldib u eg waxaad arkaysaa iyadana in ay magaca dadkii la deganaayay deegaanka dimuqraadiga inay si fiican xukuumadaha oo la qaybsadeen oo ay ahaayeen ku dad markaasi maamulka wax ka siiyay. maanta qaybtana inta ayay inugu joogaysaa waxa weeye oo siyaasadda idinkugu soo biyushuban doonaa halka qaybta 3-4 ayaa u qiimo badan oo ah xagee ku biyushuban doontaa dowladda Itoobiya ee haatan Male Zenawi uu ka baxay iyo wayaanaha oo u muuqato inay noqon doonto halkii Soomaaliya ay marto muddo dheer dagaal soqay uu socon doono. mahadsanidin iyo assalaamu calaykum iyo qaybaha qurba joogta aan u bixiyay barnaamijkan u bixiyay xajani man ogan xiribaha ayuu ku egyahay qaybteedii 3aad.